وعرّينا وزيرنا وسجيديو بريورتيga hal siiyo number 1 whatever level ay tahay shaqada in la siiyo qofka dhalinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumar ee gudaha Soomaaliya ku nool waxaan kaloo soo jeedinayaa waxaad arkaysaa shaqa la soo bandhigaya luqadda ay ku qoran tahay waa Ingiriis waxaa la odhanayaa af Ingiriis baa lagu qaadayaa imtixaanka waxaan rabaa inaan idiin sheego qofka Ingiriiska ku hadla iyo qofka af Soomaaliga ku hadla waa laba qof kaasina Ingiriis buu ku hadlaa kana af Soomaaliga ku hadlaa ma aha ka Ingiriiska ku hadlayaan oo ka aqoon badan yahay waxaa aqoon leh midka labadaba isu yaqaana haddaad af Soomaaligana taqaanid Ingiriiskana taqaanid aqoontaadu markaa ka kala wax yar bay dheertay laakiin ninkan ajnabiga ee Ingiriiska ku hadlaya adna Soomaali baad ku hadashay qof kala ka shaqo ka helayo turjubaan noqonayo turjubaan adduunka waa jira meel walba yaan lagu xidhin shaqooyinka af Ingiriis haddii la doonayo dhalinyarada in laga badbaadiyo badaha kow waa in shaqada la siiyo dadka Soomaaliyeed ee gudaha Soomaaliya jooga ee baasaboorada ajaanibta wadanin priority-ga la siiyo labo luqadda imtixaanaadka lagu qaadayo ee lagu shaqeynayo waa inay af Soomaali noqotaa haddaan labadaa keeno dhalinyaradeenna waa noo badbaadayaan shaqana waa buuxdaa